dugsiga xirfadaha haweenka ee Maandeeq ayaa maanta soo bandhigay 50 arday kuwaas oo wax ka bartay dugsigan. Ardaydan oo wax ka baranaya dugsigan sanadii 6 bilood ayaa waxa kamid ahaa waxyaabihii ay barteen cunto karinta, dhar tolida iyo qurxinta haweenka nooca dabiiciga. munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen haldoorka gobolka Sool ayaa waxa lagu soo bandhigay halkaasi qaar kamid ah cuntooyinka ay kariyeen ardaydan. maamulaha guud ee xaruntan Sahra Cali Maxamed oo ku magac dheer Maandeeq ayaa faahfaahin ka bixisay baada Maandeeq waan iskuulka waxa ka qalin jabinaya maanta 50 hablood biidnillah waraal iskuulka waxyaalaha ay ka qaateen ama ka qalin jabinaya soo bandhigeen waxa kamid ah cuntooyinka aad aragtaan dharka oo la tolay oo hadda la wada sagana galmeyda laakiin waa la wada ardayda qalin jabinaya xagga harqaanka iskuulka waxyaalaha uu bixiyo waxa kamid ah cunto karinta harqaanka qurxinta haweenka ilaahay baa qurxiyo laakiin naashnaashka iska jecel yihiin kabacdi waxa lagu bartaa sida maaragtay wajiyada loogu qurxiyo oo kale qurxin dabiici oo wanaagsan oo diinta islaamka waafaqsan ayaa lagu bartaa. waxaa kale iskuulka lagu bartaa dharka kariska ah silbaatiga loo yaqaano ayaa lagu bartaa. waxaa lagu bartaa xinaha, waxaa lagu bartaa decorationka haweenka madaxa loo qurxiyo taasoo loogu qurxinayo wax diinta waafaqsan oo aan ahayn wax qalad ah aan ahayn. marka dhammaan walaalaha ka soo qayb galay Allah barakeeyo inta qalin jabinaysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka dhigo kuwa xirfadooda ku faa'iideysan. inta waxa la leeyahay biskuutan keen oo lagu sameeyo sida kaabkeed kan waa digaag weeye ma sha Allah barakeeyo hablaha soo diyaariyay. kan waxa weeye timir lagu sameeyay qumbe iyo lows ma sha Allah ka sheegaya waxa weeye neef dhammaystiran neefkaas oo ah inaan biyo lagu karin oo maaragtay dabadan oo siisa lagu mateeyo oo soo dhammaystiran beerka baa ka maqan. kan waxa weeye sarreen cuntada wadankeena dhammaan waxa la doonayaa walaalaha hablaha maanta laga joogo qoysaskooda u bartay waxa la doonayaa si ay waxa dalabka wadankeena ka baxaya guriga lagu sameeyo bariiska baasta looga haysto waa midiin bariiska baasta laga haysto waxa wadanka ka soo baxa aad cunto cuntada waxaa Maandeeq in badan baan dibanay muddo adag hadda sanadii walbooda baan dibanayay marka waxyaalo badan baan ka faa'iiday sida maxay cunto karinta dharka dawaarka qurxinta dumarka maxay waxyaalaha badan baan ka faa'iiday oo maxay jiraan faa'iido qalin jabisay oo ka qalin jabisay barnaamijkan cunto karinta iyo xirfadaha dumarka ah. waxaan leeyahay waa tallaabo horumar ah oo horay loo qaaday gabdhaha iskuulka furay oo Sahra madaxda tahayna waa ku mahadsan yihiin ka qaybgalka ay ka qayb galeen horumarinta bulshada iyo inay qayb ka mid ah bulshada dhalinyarteeda ay wax ku biiriyaan oo aqoon siiyaan oo ay wax ku kordhiyaan. waxyaalo waxa la soo bandhigay cajiib oo neefkaas ku dhamaayo wala yaqaanayo sidii iskuulka Maandeeq waan u hambalyeynaa ardayda ka qalin jabisayna waan ku faraxsanahay. rag kale waxaan leeyahay islaamaha ku soo darsadaan saantu waa dhigataan xirfadahan la xulay xamxamtoodu badatee dadku xaal kastuu yahay xusul duubka ugu jiro Maandeeq xardhayse xaali iyo ilaa cali xiiseeye aadmi rag waxaa walaydiyo xaaskiisii uu diray xigmadiina uu faray laga xantoobsane xigo orod tacliin baro khayrka ha hoos xigin annagu waan ku xoolay. waxaan kaloo jeclahay dalkeena waxaa laga isticmaalaa cuntooyin aan munaasib ahayn. marka ugu horreysa waxaan idinku baraarujinayaa inaad beddeshaan bariiska iyo baastada aynu cunno. cuntadan aan munaasibka ahayn ee bariiska iyo baastada inaad idinku beddeshaan oo aad ku beddeshaan cuntada dhulkeena ka soo baxda oo hadhuurka iyo galeyda iyo digirta iyo sarreenka inaynu ku milkii khayr iyo wanaag miqyaas lagu wada dadiyo meel lagu wada hirtaa Maandeeq laga yeelay oo macaahida arladaba iyada ugu mudan hadeer. halkan maalmahan warsaday anaaba maqsuudayo anay maankay degtee miyaan layga aqbalayn
suugaanta haddaan malmalay haddaan meel dheer ka riday ma'deeda waxaan ku xidhay allah magan iyo salaan anoo ku hadlaya magicii hablaha furqaan maamulkii uu joogo midigteenna uu fadhiyo anagu maamuustay maandeeq milgiyo wanaag mahadayaanu celinay maandeeq iyo maamulkeed cilmigu waa nasteexo waa haybadii bulshada xirfadu waa qaali maaraynta nolosha guud hablaha guulaystay hambalyaanu fidinayaa imaanka ku qaatay cilmigooda kala duwan oo sawda ka mid tahay ku guulaysta gacalayaal waxa weeyaan maandeeq vocational hadii la yiraahdo okay baan umaleynaya because waxa weeyaan waxyaalaha gacanta laga qabto aad baa loogu baahan yahay dalkeena wuxuu qabaa baahi weyn markaan ku hadlayo magaca waalidka magaca macallimiinta magaca wasaaradda waxaan aad iyo aad ugu soo dhaweynaynaa xafladan qalin jebinta ee aan u maleynay dufcadii koowaad inay ka qalin jebinayso waxaana welcome cunada kuukiga aad soo samayseen miiska aad ka soo dhigteena waa cunada tusaysa inaad tihiin dufcadii koowaad oo si wacan aad uga qalin jebiseen sumcadna aad ugu haysaan iskuulkan maandeeq vocational runtii waan u hambaleynayaa ardayda qalin jebisay waxaan aaminsanahay in dadaal ay u soo wadeen ay maanta maaragtay gabagabadiisii ay yimaadeen inkastoo waxbarashada aysan dhammaanin isku halhays baanu markaan ogolanaa insha allah tacaala waxaan rajaynaynaa haddaan nahay bangiga amal in aanu arrintaas gacan weyn ka geysano sidii bulshadeena loo horumari lahaa runtii wax badan baad baranteen waxaana markaa arrinka hadday cuntadaas soo samayseen caqabada labaad waxa weeye waa saaxiibada waxa laga yaabaa ardaygu markuu soo qalin jabiyo caqabada labaad waxa ku noqonaya saaxiibadii markii ay munaasabadan soo afmeerantay waxaa munaasabadaasi lagu maamusay macallimadii ardaydan soo saartay iyo dhammaan iyo sidoo kale waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey kontonkii arday ee ka qalin jabiyey meel Ismaaciil Haradigeed Ariel TV Lascano.